salaaman dhammaan asxaabta nagu xiran waan soo laabtay maanta waxaan idiin wadaa filim jacayl oo ay ka buuxaan jacayl nacayb iyo argoosi dhexmara carruurta qoysaska hodanka ah ee bulshada sare. filimku wuxuu ka hadlayaa jiilka labaad ee qoysaska bilyaneerada ah. atooraha sheekadu waa Sehyoon oo 19 jir ah kana tirsan ardayda dugsi sare oo sumcad weyn leh. waa cunuga ugu weyn ee qoyska leh group shirkad weyn oo dawooyin ka samaysa Kuuriyada Koonfureed. Sehyoon waa dhalinyaro qurux badan oo soo jiidasho leh waxaana uu had iyo jeer noqdaa xarunta dareenka meel kasta oo uu tago. dugsiga gabdhaha oo dhan way jecel yihiin, xitaa qaar ka mid ah macallimiinta dada yar ayaa si qarsoodi ah u muujiya xiisahooda iyagoo marmarsiinyo ka dhigaya inay buugaag siiyaan si ay fariimo qarsoon ugu gudbiyaan. inkastoo uu bannaanka uga muuqdo nin madax adag oo fallaago ah, nolosha qoyska Sehyoon ma aha mid farxad leh. hooyadiis waxay geeriyootay 2 sano ka hor, aabbihiisna mar walba waa nin kulul oo dan kama laha si uu uga hor yimaado aabbihii. Sehyoon wuxuu hindisaa qorshe khiyaano leh. wuxuu adeegsadaa soo jiidashadiisa si uu u soo jiito haweenka isku daya inay aabbihiis u dhowaadaan, isaga oo ka dhigaya inay jeclaadaan dabadeedna si qabow ayuu uga tegayaa qof kasta oo si ula kac ah ugu soo dhowaada qoyskiisa isagoo dano gaar ah leh. wuxuu noqdaa bartilmaameed uu Sehyoon ku ciyaaro dareenkooda. dugsiga Sehyoon wuxuu saaxiibo dhow leeyahay 2 qof, mid waa Suji oo ah gudoomiyaha golaha ardayda islamarkaana ah gabadha qoyska leh Myung Jung Group. inkastoo ay ku nooshahay nolol raaxo leh, haddana qoyska Suji waa kala daadsan yahay kadib markii shirkadii aabbaheed la kulantay dhibaato weyn oo keentay dacwado sharci ah. waalidkeed way kala tageen. Suji waxay aaminsan tahay in hooyadeed ay khaladka lahayd, sidaas darteed xiriirka hooyo iyo gabadheed aad buu u xun yahay. saaxiibka kale waa Seju oo isaguna ka soo jeeda qoys bilyaneer ah islamarkaana caan ku ah inuu gabdho badan la sheekaysto. saddexdan saaxiib aad bay isugu dhow yihiin, mar walbana way isdifaacaan haddii qof ku dhiirado inuu midkood dhigo labada kale islamarkiiba way soo farageliyaan oo cashar bay u dhigaan. xitaa ficilo aad u dhow sida gacanta garabka la saaro ama madaxa lagu tiirsado waxay u arkaan wax caadi ah. muddo yar gudaheed waxaa la gaarayaa maalinta qalinjabinta. intii lagu jiray xafladda, Suji waxay aragtaa ardayad ay dhibayso macalinka fasalka si aan habboonayn. iyadoo geesinimo leh ayay u orodaa si ay u caawiso. waxay sidoo kale si cod dheer ugu jeesjeestaa sirihiisa mugdiga ah, iyadoo kula talinaysa in haddii uu u baahan yahay baaritaanka DNA-da uu aado isbitaalka qoyskeeda, taas oo uga caraysiisa si weyn. isla goobtaas Suji waxay la kulantaa macalinkeedii hore ee farshaxanka. waxaa soo baxaysa in Suji ay hore u jeclayd macalinkan, xitaa si geesinimo leh ayay ugu qiratay dareenkeeda. laakiin xiriirkaas aan qaangaarka ahayn waxaa si degdeg ah u joojisay hooyadeed. wakhtigaas macalinku wuxuu ku yidhi hadallo dhaawac leh, isagoo ku amray inay joojiso riyooyinka aan macquulka ahayn oo ay diiradda saarto waxbarashadeeda. arrintaas ayaa Suji qalbigeeda ku reebtay nacayb. dhowaan ayay ogaatay in macalinka farshaxanku guursanayo, balse gabadha uu guursanayo ay xiriir qarsoodi ah la leedahay isla macalinka fasalka ee ay neceb tahay. Suji waxay go'aansataa inay fursaddan uga faa'iidaysato argoosi. waxay si qarsoodi ah u rakibtaa kamarad waxayna duubtaa cadeymo muujinaya xiriirka khaldan ee labadooda. dabadeedna waxay ka codsataa Sehyoon iyo Seju inay ku soo bandhigaan muuqaalkaas bartamaha xafladda qalinjabinta. sida la filan karo, qof walba aad buu u naxaa. macalinka farshaxanku sumcad weyn ayuu lumiyaa, argoosiguna si buuxda ayuu u guulaystaa. si kastaba ha ahaatee, gudaha qalbigeeda Suji weli farxad ma dareemayso. wakhtigan ardayadii Kyungju oo ay Suji caawisay ayaa u timaada si ay ugu mahadceliso. waxay sheegtaa inay aad ula dhacday saaxiibtinimada 3dan qof, waxayna codsataa inay sawir wada galaan. kadib ninka ay Suji jeceshahay oo lagu magacaabo Kyung ayaa gaari ku yimaada si uu u qaado. marka ay hortiisa joogto, Suji waxay isla markiiba isu yeeshaa gabadh degan oo xarago leh. laakiin xafladii dhexdeeda, markii Suji rabto inay si rasmi ah u shaaciso xiriirkooda, Kyung si qalbi adag ah ayuu gees ula baxaa. wuxuu si kulul ugu sheegaa inay yihiin oo keliya kuwa hadda isbartay, wuxuuna ku yidhaahdaa inay joojiso mala-awaalka sababtoo ah heerka qoyskeedu hadda la mid ma aha kiisa. iyadoo aad uga xanaaqsan in sharafteedii la dhaawacay, Suji si go'an leh ayay meesha uga tagtaa. dhanka kale, Sehyoon iyo Seju waxay aadaan baar si ay wakhti ugu qaataan. Sehyoon wuxuu markiiba la dhacsan yahay haweeney qurux badan oo ka weyn, wuxuuna bilaabaa inuu la sheekaysto. labadoodu waxay wadaagaan wakhtiyo jacayl leh, laakiin nasiib darro, haweeneydan waa hooyada Kyungju, gabadhii ay sawirka wada galeen. subaxdii hore markii Sehyoon guriga ku soo laabto, wuxuu la kulmaa naxdin weyn. aabbihiis wuxuu hordhigayaa natiijada baaritaanka DNA-da, wuxuuna ku dhawaaqaa in Sehyoon aanu ahayn wiilkiisa dhabta ah. si kulul ayuu guriga uga eryaa, wuxuuna jaraa dhammaan xiriirka. niyadjab iyo murugo awgeed, Sehyoon wuxuu si aan ujeedo lahayn ugu wareegayaa wadooyinka. markaas ayuu xusuustaa taladii hooyadiis, haddii aad dhib qabto samee diyaarad warqad ah oo cirka ku tuur, murugadaadu way duuli doontaa. Sehyoon wuxuu qaataa warqaddii imtixaanka, wuxuu ka sameeyaa diyaarad warqad ah, dabadeedna cirka ayuu u tuuraa. diyaaradii warqadda ahayd waxay si lama filaan ah ugu degtaa cagaha Taehe oo ahayd gabar meel u dhow fadhiday. markii ay damacday inay qaado oo u celiso milkiilihii Sehyoon wuxuu durba si madan u fuulay basi kadis ah. Taehe waxay fuushaa isla baskii markay aragto gabadha oo madaxeeda si joogto ah ugu dhacaya daaqada baska sababtoo ah hurdo badan. Sehyoon inkastoo uu murugaysan yahay wuu iska qoslaa. markii ay degaysay, Taehe waxay si kama ah u ridaa casuumaad loogu talagalay bandhig dhoobo farshaxan. Sehyoonna wuu soo qaadaa dhanka kale xaflad kale oo ay ka soo qayb galaan dadka bulshada sare. Kyung ninkii si xun ula dhaqmay Suji wuxuu si lama filaan ah ula kulmaa jacaylkiisii ugu horreeyey, waana Taehe hortooda. Taehe Kyung wuxuu noqdaa nin aad u daryeel badan oo naxariis leh. Taehe waa gabar aad u karti badan oo hadda heshay deeq waxbarasho oo buuxda oo ay bixisay shirkadda kooxda. markay Suji aragto ninka ay jeceshahay oo si diiran ula dhaqmaya gabar kale, masayr baa qabsada. waxay go'aansataa inay bartilmaameed ka dhigato. waxay u tagtaa Sehyoon waxayna ka codsataa inuu adeegsado soo jiidashadiisa si uu Taehe u jeclaado, kadibna si naxariis darro ah uga tago. bilowgii Sehyoon wuu diidaa sababtoo ah ma doonayo inuu qof aan waxba galabsan dhaawaco, taas oo keenta muran dhex mara isaga iyo Suji. xafladdaas gudaheeda, Sehyoon wuxuu mar kale la kulmaa hooyada Kyungju. hadda ayay ogaanaysaa inuu yahay saaxiibka fasalka gabadheeda, iyadoo ka baqaysa in sirtii baarka la ogaado oo ay dhaawacdo
dhacdo gabadheeda waxay si degdeg ah uga baryaysaa Sehyun inuu aamuso isaguna uu ogolaadaa laakiin yaabka ugu weyn ee xafladdu wuxuu yimaadaa markii aabbaha Sehyun iyo hooyada Suji ay masraxa fuulaan oo si rasmi ah ugu dhawaaqaan inay isguursanayaan si ay danaha ganacsi uga faa'iidaystaan. Sehyun iyo Suji labaduba aad bay ula yaabaan. dhanka kale Taehae waxay tagtaa bandhiga dhoobada ee hooyadeed si ay ugu sheegto inay hadda haysato deeq waxbarasho oo aysan mar dambe u baahnayn inay lacag u soo dirto xiriirka. iyada iyo hooyadeed aad buu u kulul yahay sababo la xiriira xanuunkii furiinkii hore. kadib markay warka sheegto si degdeg ah ayay meesha uga tagtaa iyadoo jidka ku socota. waxay ku sigataa inuu jiro gaariga uu wado Sehyun kaas oo waqtigaasi weyn u xanaaqsanaa oo xakamihiisa luminayay. markuu Sehyun gaariga ka dego si uu u hubiyo xaaladeeda Taehae weli aad bay u cabsanaysaa. kadib markuu siiyo xogtiisa xiriirka si loo xaliyo wixii magdhow ah Sehyun wuxuu helaa wicitaan degdeg ah oo sheegaya in wax ku dhaceen Suji. waxaa soo baxaysa in Suji oo si daran uga naxday warka ah in hooyadeed guursanayso aabbaha saaxiibkeeda dhow ay gashay xaalad argagax iyo burbur maskaxeed oo daran iyadoo ku sigatay inay samayso fal khatar ah. Sehyun wuxuu ku gaaraa waqtigii saxda ahaa gacanteedana si adag ayuu u qabtaa isagoo si joogto ah u dejinaya ilaa ay isdejiso. isla waqtigaas saaxiibkood Seju waxaa si adag u ciqaabaya awowgiis kadib markii uu gaari qaatay fasax la'aan oo uu dhibaato sameeyey. markay saddexdoodii saaxiib mar kale kulmaan dhammaantood waxay aad uga xumaadaan guurka heshiiska ku salaysan ee waalidkood. Sehyun isagoo kaftamaya ayuu yidhaahdaa malaha aniga iyo Suji waa inaan marka hore isguursanaa si aan qorshahooda u burburino. inkasta oo ay u muuqato kaftan xaqiiqadu waxay tahay in Sehyun muddo dheer jeclaa Suji laakiin maadaama ay ku barbaareen qoysas jacayl yari ka jiro oo ay ka buuxaan khiyaanooyin iyo dano gaar ah si fudud uma rumaystaan jacaylka Suji. waxay keentaa shuruud. waxay ku tidhaahdaa haddii Sehyun doonayo inay isaga aaminto waa inuu fuliyaa qorshihii lagu heshiiyey inuu Taehae jeclaado kadibna ka tago markan si uu u caddeeyo dareenkiisa. Sehyun uu aqbalaa. saddexdoodii waxay bilaabaan inay qorsheeyaan sida loo waxyeelayn karo Taehae iyagoo adeegsanaya cinwaanka ku qoran kaarka casuumaadda. Sehyun oo si qurux badan isu diyaariyey ayaa ubaxyo la tegaya gurigeeda isagoo hubinaya inuu dhibco badan heli doono. laakiin si lama filaan ah qofka albaabka fura waa hooyada Kyungju. waxay u malaynaysaa inuu u yimid iyada sidaas darteed way argagaxdaa waxayna isku daydaa inay ka cayriso si aysan dhibaato u dhalan. isla waqtigaas Taehae iyo Kyungju ayaa guriga yimaada. Kyungju horeba waxay u necbayd wararka xun ee laga sheegay Sehyun sidaas darteed buuq ayay ka samaysaa arrinta taasoo ku qasabta Sehyun inuu si ceebaysan uga cararo. markay Taehae aragto dhacdadaas fikradii xumayd ee ay isaga ka qabtay ayaa sii xumaada. si kastaba ha ahaatee Sehyun ma quusto. wuxuu sii wadaa isku daygiisa. wuxuu ku sugaa goobta baska isagoo iska dhigaya nin soo jiidasho leh balse wuxuu ka helaa oo keliya indho quursi ah. markii ay baska wada saaran wuxuu isku dayaa inuu ruxashada baska uga faa'iidaysto muuqaal jacayl ah laakiin taa beddelkeeda wuxuu noqdaa qof ay rakaabku ku qoslaan. xitaa wuxuu shaqaalaysiiyaa qof iska dhigaya nin rabshad badan oo Taehae dhibaya si uu u muuqdo geesi badbaadinaya gabadh qurux badan. Sehyun ma uusan ogeyn in Taehae ay tahay gabar aad u xoog badan keliya ma aysan iska difaacin ninkii loo soo kiristay inuu dhibo balse sidoo kale waxay isla markiiba ogaatay qorshaha Sehyun oo bannaanka soo dhigtay khiyaamadiisa. markii uu arkay in dhammaan qorshayaashiisii fashilmeen Sehyun wuxuu go'aansaday inuu si daacadnimo leh ugu dhowaado Taehae. wuxuu xasuusiyey sheekadii diyaaradda warqadda ee ay isku barteen baska taas oo ugu dambayn ka dhigtay Taehae inay aqoonsato. saaxiibadii waxay sii wadeen inay hindisaan xeelado cusub si Sehyun ugu ekaado inuu si kama ah ula kulmayo Taehae maktabadda. inkastoo Taehae markii hore iska indho tirtay adkaysiga Sehyun iyo daryeelkiisa yaryar intii lagu jiray cuntada ayaa si tartiib ah qalbigeeda u jilciyey. si kastaba ha ahaatee weli waxay uga digtay inuusan ku ciyaarin dareenka dadka. dhanka kale Suji waxay iyaduna bilowday qorshaheeda ay kaga aargoosanayso Kyung iyadoo isku dayaysa inay u dhawaato gabadha uu guursan doono. sidoo kale Seju waxaa lagu qasbay inuu noqdo xisad si uu ugu dhawaado Kyungju una soo ururiyo xog dheeraad ah oo ku saabsan Taehae si uu u dedejiyo qorshaha uu ku kasbanayo qalbiga Taehae. Sehyun wuxuu go'aansaday inuu iska diiwaangeliyo shaqo mutadawacnimo oo lagu qabanayo guri daryeelka dadka waayeelka ah halkaas oo Taehae sidoo kale ka shaqayn doonto dhammaadka usbuuca. maalintii la ballamay Sehyun wuxuu si sax ah uga soo muuqday Taehae horteeda. wuu u dhoola caddeeyey wuxuuna ku ammaanay timaheeda cusub inuu aad ugu qurux badan yihiin. sidoo kale sidii caadadiisu ahayd meel iyo wakhti kasta ayuu uga faa'iidaysanayay inuu qirto jacaylkiisa taas oo qalbiga Taehae ka dhigtay inuu si degdeg ah u garaacmo. markii ay gaareen guriga dadka waayeelka ah Taehae si diiran ayaa loo soo dhaweeyey. hooyooyin waayeel ah ayaa hareeraheeda isugu yimid iyagoo farxad ku ciyaaraya qoobka ciyaar. dhanka kale Sehyun nasiib uma yeelan soo dhaweyn noocaas ah. waxaa loo diray bannaanka si uu sagxadaha u nadiifiyo una raro kaabashyo culus. markii uu daalay wuxuu wacay Suji si uu uga cabto shaqada adag laakiin Suji si kulul ayay taleefanka ugu damisay. intii uu shaqaynayay Sehyun wuxuu la kulmay haweeney waayeel ah oo qabta xanuunka xusuus lumiska. haweeneydu waxay u qaadatay Sehyun inuu yahay ninkeedii geeriyooday. waxay gacanta ka qabatay iyadoo ka codsanaysa inuu u sawiro ubaxyo forsity ah. Sehyun wuxuu sameeyey sidii ay codsatay. wuxuu u sawiray ubax qurux badan wuxuuna iska dhigay ninkeedii isagoo gacanteeda si diiran u haya. haweeneydii aad bay ugu faraxday markay Taehae aragtay sida Sehyun ula dhaqmay dadka waayeelka ah. aragtideedii ku saabsanayd isaga si weyn ayay isu beddeshay. ka hor intaysan bixin maamulaha xaruntu wuxuu Sehyun iyo Taehae guddoonsiiyey sanduuq kimchi ah si uu u mahadceliyo shaqadii adag ee ay qabteen maalintaas. markii ay baskii guriga ku noqonayeen Sehyun aad buu u daalay wuxuuna ku dhacay hurdo qoto dheer. Taehae si degan ayay isu dhaqaajisay si uu madaxiisa ugu tiirsado. iyada waqtigaas ayay bilowday inay dareen gaar ah u qaado Sehyun. markii uu guriga gaaray Sehyun si ula kac ah ayuu u wacay Taehae isagoo weydiiyey
weydiinaya sida loo kariyo baasto degdeg ah. Taehe ayaa markaas tallaabo ugu sharaxday habka loo kariyo iyada oo taleefanka kula hadlaysa. Muuqaalkaasi wuxuu ahaa mid aad u diiran oo qalbiga taabanaya. Dhanka kale Kyungju waxay isu soo diyaarisay si qurux badan waxayna baarka la tagtay Suji iyo Seju, laakiin Seju wuxuu ku mashquulsanaa oo keliya inuu la sheekaysto gabdho qurux badan oo kale, mana uusan dareemin Kyungju haba yaraatee. iyadoo niyad jabsan Kyungju waxay go'aansatay inay goor hore guriga ku noqoto. Markii ay guriga gaartay waxay Taehe uga warantay wixii maalintaas dhacay. Markaas ayay Taehe ogaatay in qofka Kyungju jeceshahay uu yahay Seju ee aanu ahayn Sehyun. markii ay ogaaday in saaxiibteed ugu dhow ay jeceshahay Sehyun, Kyungju waxay ku dhiirigelisay inay si geesinimo leh u raacdo jacaylkeeda. dhanka kale Suji waxay ku caajistay joogitaanka baarka waxayna qorshaysay inay iyaduna goor hore baxdo, laakiin si lama filaan ah nin ayaa gacanta ka qabtay oo dib u celiyey. markii uu arrinta arkay Seju si degdeg ah ayuu u soo orday isagoo aan laba labayn wuxuuna dagaal la galay ninkaas. labadoodu way iskaraaceen. Sejuna dhaawac ayaa wejiga ka soo gaaray. Suji aad bay uga murugootay, waxay istiri guriga ayaa lagu garaacaa, haddana xitaa marka uu bannaanka u soo baxo si uu u madadaasho dhaawac ayaa soo gaara. laakiin Seju wuxuu iska dhigay inuusan waxba ka qabin. kadib markii uu Suji taksi saaray oo uu sagootiyey wuxuu keligiis aaday isbitaalka si uu u booqdo hooyadiis. waxaa markaas soo baxday xaqiiqo murugo leh. hooyada Seju muddo dheer ayay ku jirtay xaalad miyir beel ah. Seju oo caadi ahaan dadka hortooda uga muuqda qof jees badan oo aan waxba ka welwelin wuxuu markan muujiyey dhinaciisa jilicsan. wuxuu qirtay in markii uu qofka garaacay maanta uu aad uga baqay inuu mustaqbalka noqdo nin rabshad badan sida aabihiis, inkasta oo uu mar walba qoslo oo si farxad leh ula hadlo dadka. xaqiiqadu waxay tahay in Seju uu sidoo kale yahay wiil yar oo u baahan jacaylka iyo daryeelka hooyadiis si ay uga yarayso dareenka xun ee carruurteeda ka haysta guurka cusub. hooyada Suji waxay kala hadashay aabbaha Sehyun inay wada yeeshaan casho qoys. waxay mar walba rabtay inay u dhawaato gabadheeda, laakiin mar kasta oo ay hadallo kooban isdhaafsadaan Suji waxay bilaabaysaa inay ku jeesjeesto hooyadeed. dhanka kale Master Sehyun mar kasta oo uu afka furo wuxuu ka hadlaa shaqada oo keliya, mana yaqaan sida dadka loo qalbi qaboojiyo. waxaa kaloo la ogaaday inuu leeyahay xiriir aan caadi ahayn oo qarsoodi ah oo kala dhexeeya Yoonkwon hooyada Taehe, iyagoo mararka qaarkood si qarsoodi ah ubaxyo isu dira. Suji ugu dambayn way ogolaatay inay cashada ka qayb gasho, laakiin markii ay gaartay maqaayadda waxay aragtay aabbaha Sehyun oo jihada kale u socda isagoo hooyadeed keligeed uga tegay miiska cashada iyadoo dareen yaab leh qabta. Suji waxay si qarsoodi ah u daba gashay Master Sehyun. waxay ogaatay in uusan u socon cashadii qoyska balse uu aaday inuu la kulmo haweeney kale. qofka uu dhab ahaantii jecel yahay waxa ay ahayd Yoonkwon hooyada Taehe. Suji waxay si qarsoodi ah uga daawatay dalool yar oo albaabka ku yaalay halkaas oo ay u aragtay labada qof oo ishabsiinaya. aad bay uga naxday waxa ay aragtay kadib markii uu la kulmay qofkii uu doonayay inuu arko. Master Sehyun wuxuu ugu dambayn yimid cashadii Suji iyo hooyadeed. intii cashadu socotay Suji waxay ka codsatay aabbaha Sehyun inuusan Sehyun ka saarin guriga uu hadda degan yahay. waxay sheegtay in gurigaasi ahaa meesha uu Sehyun kula noolaa hooyadiis, islamarkaana uu xambaarsan yahay xusuuso qaali ah oo muhiim u ah labadoodaba. waxay sidoo kale ballanqaaday in haddii uu aqbalo codsigeeda aysan ka hadli doonin sababta uu goobta u yimid saacad kadib wakhtigii loo ballamay. markay hooyadeed maqashay hadalladaas dadban waxay bilowday inay wax ka shakiso. dhanka kale Sehyun ma uusan ka qayb gelin cashada, wuxuu u raacay Taehe xarunta dadka waayeelka ah si ay mar kale mutadawacnimo uga wada shaqeeyaan iyagoo wada nadiifinaya goobta. gacmahoodu si kama ah ayay isu taabteen. Sehyun wuxuu weydiiyey Taehe haddii ay rabto inay si dhab ah isaga u barato. Taehe waxay ugu jawaabtay inay runtii rabto laakiin ay wax yar ka cabsanayso. markaas Sehyun wuxuu u sheegay inaysan jirin sabab ay dareenkeeda u qarinayso. waxaana markaas soo baxday in Taehe ay saxankii uu maalintii hore u sawiray haweenaydii waayeelka ahayd u beddeshay saxan dhoobo ah oo dhammaystiran. waxay tustay saxankii waxayna weydiisay ma qurux badan yahay, laakiin Sehyun si macaan ayuu ugu jawaabay ma aha mid ka qurux badan adiga. markay hadalkaas maqashay Taehe si weyn ayay u xishootay. markii ay guriga ku wada noqonayeen daryeelka Sehyun iyo xiriirka dhow ee u dhexeeyey ayaa Taehe ka dhigay aad u walwalsan ilaa wejigeedu guduud noqday. markii ay guriga gaartay waxay Kyungju uga warantay wixii maalintaas dhacay. Kyungju waxay si cad u aragtay in saaxiibteed ay si dhab ah u jeceshahay Sehyun, sidaas darteed waxay go'aansatay inay si qarsoodi ah fariin ugu dirto Sehyun si ay u ogaato dareenkiisa dhabta ah. laakiin Suji ayaa si degan uga jawaabtay fariintaas iyadoo sheegtay in Sehyun uusan u muuqan qof dan badan ka leh Taehe. markii Taehe ogaatay jawaabtaas aad bay u niyad jabtay. maalin kale saddexdii saaxiib ayaa wada fadhiistay si kama ah. Suji waxay ku fadhiisatay boorsada Sehyun taas oo keentay in saxankii Taehe samaysay uu jabo. markii uu arkay saxankii oo burburay Sehyun si lama filaan ah ayuu u xanaaqay. Suji ma fahmin sababta uu uga caraysan yahay saxan keliya. waxay ku tiri inay mid cusub u iibin karto, laakiin Sehyun isagoo xanaaqsan ayuu ku jawaabay kan gacanta ayaa lagu sameeyey, lacag laguma iibsan karo. Suji waxay qaaday saxankii jabay waxayna weydiisay cidda samaysay. markaas Sehyun isagoo walwalsan ayuu si degdeg ah uga dafay gacanteeda. nasiib darro intii uu ka qaadayay ayuu si kama ah farta uga jaray Suji. tani waxay ahayd markii ugu horreysay ee Sehyun sidan ula dhaqmo. Suji oo aad u xanaaqsan ayaa boorsadeeda qaadatay kana tagtay goobta. markii uu guriga tegay Sehyun wuxuu isku dayay inuu isku dejiyo jajabkii saxanka, laakiin inkastoo uu dhowr jeer isku dayay haddana wuu ku guuldaraystay. maalintii xigtay ee mutadawacnimada Sehyun dhowr jeer ayuu isku dayay inuu la hadlo Taehe, laakiin iyadu si qabow ayay ula dhaqantay. kadib markii ay dadka waayeelka ah u qaybiyeen saxmadii la diyaariyey Sehyun ugu dambayn wuxuu go'aansaday inuu runta u sheego Taehe. markay maqashay xaqiiqada aad bay u xanaaqday. waxay weydiisay sababta uusan hore ugu sheegin. kadib waxay si cad ugu sheegtay inuusan mar dambe imaan xarunta dadka waayeelka ah. Sehyun ayaa dib
u weydiiyey taasi ma fikirkaaga gaarka ah baa mise waa waxa dadka kale kuu sheegay. labadoodii waxay ku kala tageen jawi aad u xun. Sehiyun isagoo murugaysan ayuu gurigiisii ku noqday. markii uu baasto karinayay wuxuu si joogto ah uga fikirayay Taehae. xitaa markuu arkay kimkiga ku jira qaboojiyaha waxay xusuusisay iyada isaga oo aan dareensanayn. wuxuu sawir yar oo Taehae ah ku sawiray albaabka muraayada ah. waqtigaas ayuu ogaaday in si tartiib ah uu dhab ahaan u bilaabay inuu daneeyo Taehae. dhanka kale markii Taehae mar kale tagtay xarunta dadka waayeelka ah, maamulaha xaruntu wuxuu tusay sawir Sehiyun iyo hooyadiis. waxaa la ogaaday in hooyada Sehiyun ay sidoo kale halkaas mutada wacnimo ka samayn jirtay ka hor geerideeda. maamuluhu wuxuu sheegay inuu qorsheynayay inuu sawirka tuso Sehiyun marka uu mar kale yimaado Taehae. iyadoo murugaysan ayay tiri, waxaan u malaynayaa inuusan mar dambe iman doonin. laakiin maamuluhu isagoo yaaban ayuu ku jawaabay, Sehiyun shalay ayuu halkan joogay. markaas ayay Taehae si weyn ula yaabtay. waxay ogaatay in Sehiyun shalay si gaar ah u yimid si uu gacantiisa ugu sameeyo saxan cusub oo bedel u noqda kii jabay. markii saddexdii saaxiib mar kale kulmeen, Sehiyun wuxuu sheegay inuu doonayo inuu ka tanaasulo qorshihii uu ku kasban lahaa qalbiga Taehae. laakiin Suji ayaa ku tiri, ka hor intaadan oran waan quustay waa inaad marka hore samaysaa dadaalkaaga ugu dambeeya. Sehiyun mar kale ayuu aqbalay codsigeeda. habeenkaas hooyada Suji waxay doonaysay inay casho la yeelato aabbaha Sehiyun, laakiin Master Seokgun uu diiday codsigii cashada isagoo sheegay inuu shaqo badan ku mashquulsan yahay. laakiin dhab ahaantii wuxuu ballan jacayl la lahaa Yoongwon oo ahayd jacaylkiisii ugu horreeyey. labadoodu waxay wada fadhiisteen iyagoo ka sheekaysanaya waayihii hore. Yoongwon waxay aaminsanayd in xiriirkoodii hore uusan lahayn mustaqbal dambe, waxayna rajaynaysay inuu iska iloobo wixii dhacay oo uu noloshiisa sii wato. dhanka kale hooyada Suji si fiican ayay u ogeyd inuusan Master Seokgun jeclayn, islamarkaana guurkooda uu ahaa heshiis ganacsi oo keliya. iyadoo niyad jabsan ayay cabtay khamri badan ilaa ay miyir beeshay, waxaana gurigeeda geeyey xoghaye Don oo ka tirsan J Group. maalintii Taehae u guuraysay qolkeeda cusub ee hoyga ardayda Sehiyun si lama filaan ah ayuu u dareemay walwal. markaas ayuu u cararay si uu u caawiyo labadoodu. waxay wada qaadeen alaabtii iyagoo u sii socda hoyga ay bixisay Myung Jung Group. laakiin markii ay gaareen halkaas waxaa loo sheegay in qof hore u soo wacay oo kansalay qolkii Taehae. meel ay degto ma lahayn. iyadoo murugaysan ayay dhulka fadhiisatay. kii uu arkay xaaladeeda Sehiyun aad ayuu uga xumaaday, islamarkiiba ayuu gacanta qabtay gaariga saaray, wuxuuna go'aansaday inuu geeyo gurigiisa. laakiin markii uu gaariga soo dhigay dhismaha hortiisa, booliis ayaa yimid oo xiray isaga iyagoo ku eedeeyey inuu xaday gaari. Taehae ma fahmi karin sababta ay sidaas ugu walwalsan tahay Sehiyun isagoo dhoola cadaynaya ayuu ku yidhi, marka hore guriga tag oo isug furaha sirta ah ee albaabka waa lambarka taleefankaaga. Taehae waxay gashay guriga. gudaha waxay ku aragtay sawirkii uu Sehiyun ka sameeyey iyada oo ku yaalay albaabka muraayada ah. waxay sidoo kale aragtay saxankii asalka ahaa ee uu ugu talagalay inuu hadiyad ahaan u siiyo haweenaydii waayeelka ahayd. markay waxyaabahaas aragtay aad bay u taabatay. dhanka kale saldhigga booliiska, Sehiyun wuxuu sharaxay in gaarigu uu ahaa kii hooyadiis lahayd tan iyo markii hooyadiis geeriyootay. isaga ayaa mar walba waday gaarigaas. laakiin si lama filaan ah sarkaalka booliisku wuxuu sheegay in qofka dacwadda gudbiyey uu ahaa Master Seokgun laftiisa. isla waqtigaas Taehae ayaa iyadoo walwalsan gudaha u soo carartay. maadaama ay si fiican u taqaan sharciga, waxay booliiska u sharaxday xeerarka dhaxalka ee khuseeya gaariga. booliisku waxay kula taliyeen Sehiyun inuu guriga tago oo arrintan si cad ugala hadlo aabbihiis. waxay sidoo kale sheegeen in gaariga uusan lahayn wax diiwaangelin ah oo muujinaysa inuu weligiis galay shil. arrintaas waxay Sehiyun gelisay shaki weyn. hooyadiis waxay ku geeriyootay shil gaari. haddaba haddii aysan jirin wax diiwaan ah oo shilkaas ku saabsan, maxaa dhacay? ma suuragal baa inay jirto sir qarsoon oo ka dambaysa geerida hooyadiis? intii uu arrintaas ka fikirayay, la taliyaha sharciga ee J Group ayaa goobta yimid, wuxuuna u sheegay Sehiyun inuu inta kale isagu maamuli doono. kadibna Sehiyun waa la sii daayey. markii ay bannaanka uga soo baxeen saldhigga booliiska, Taehae waxay ku istaagtay suulasha lugaheeda si ay maro qoorta lagu xirto ugu xirto Sehiyun. xilligaas qalbiga Sehiyun waxaa ka buuxsamay farxad iyo diiran. kadib waxay wada aadeen dukaan yar oo habeen iyo maalin furan. markii Taehae xasuusatay sawirka uu ka sameeyey ee ku dheganaa albaabka muraayada ah, waxay si buuxda u hubsatay in Sehiyun isaguna jeclaa. sidaas darteed si toos ah ayay ugu qiratay jacaylkeeda. kadibna labadoodu waxay wadaageen dhunkasho macaan oo jacayl ah. markii ay guriga ku soo laabanayeen, Taehae qalbigeeda waxay si qarsoodi ah uga rajaynaysay in rabitaankeedii dhalashada uu rumoobo, kaas oo ahaa inay la joogto qofka ay jeceshahay. maadaama Taehae aysan lahayn meel kale oo ay degto, Sehiyun wuxuu geeyey guri dabaq ah oo ku yaalay dhinaca ka soo horjeeda gurigiisa. run ahaantii Sehiyun ayaa lahaa dhismahaas, laakiin wuxuu ka baqay in haddii Taehae ogaato ay dareemi doonto culays ama dayn. sidaas darteed sir ayuu ka dhigtay. markii dambe Suji ayaa wacday Sehiyun si ay ugu casuunto cunto, laakiin Sehiyun wuxuu ka walwalsanaa in Taehae ay keli ku daali doonto guuritaanka. sidaas darteed wuu diiday casuumadda. arrintaas waxay Suji ka dhigtay mid aad u niyad jabtay. Sehiyun wuxuu sii waday inuu ka caawiyo Taehae dejinta alaabteeda cusub. maalin ayuu arkay iyadoo isku dayaysa inay beddesho nal koronto. Taehae waxay siisay tilmaamo, isaga ayaana u keenay qalabkii ay u baahnayd. markii shaqadii dhammaatay, Taehae waxay ka qaadatay koob casiir liin ah oo Sehiyun watay. dabadeedna si weyn ayay uga cabtay markii uu arkay bushimaheeda casaanka ah ee soo jiidashada leh. Sehiyun si aan ula kac ahayn ayuu candhuuftiisa u liqay. isagoo isku dayaya inuu qariyo dareenkiisa. si degdeg ah ayuu cajalad ugu dhejiyey afkeeda. falkan ayaa Taehae gebi ahaanba wareeriyey. waxay mooday inay si qalad ah uga cabtay cabitaankiisa. sidaas darteed way xishootay. intii ay jaranjarada dhaqaajinayeen, Sehiyun si kama ah ayuu gidaarka u wasakheeyey. markii Taehae aragtay qaylo ayay la soo booday, iyadoo ka baqaysa in lagu soo dalaco qarashka dayactirka. dhibaatadu waxay ahayd inaysan hadda haysan lacag badan. Sehiyun markii uu arkay sida ay uga falcelisay wuu argagaxay, wuxuuna si degdeg ah qalabkiisii ula noqday gurigiisa. kadib markii uu baxay, Taehae waxay bilowday inay ka shalayso sida ay arrinta uga badbadisay. tan iyo markii Taehae
tahe u soo guurtay xaafaddaas Sehyun marar badan kama soo qaybgelin kulamadii saddexda saaxiib qalbigiisa hadda wuxuu ku mashquulsanaa tahe oo keliya mararka qaarkood wuxuu u iibin jiray waxyaabaha maalinlaha ee ay u baahan tahay dabadeedna si qarsoodi ah ayuu albaabkeeda hortiisa ugu reebi jiray daryeelkaas yaryar ee diiran ayaa si tartiib ah u dhalaaliyey qalbigii kulul ee tahe dhankeeda tahe iyaduna waxay bilowday inay si gaar ah fiirsato muuqaalkeeda waxay si taxadar leh isu qurxin jirtay ka hor intaysan bannaanka u bixin laakiin indhaha Sehyun tahe mar walba way qurux badnayd iyadoon loo eegin inay isqurxisay iyo in kale dhanka kale hooyada Suji waxay isku dayeysay inay barato aqoon kasta oo ka caawin karta inay si dhaqso leh ula qabsato shaqada group mar kasta oo ay la cuntaynaysay Master Seojon waxay si taxadar leh u qoran jirtay qoraallo iyo xusuusin waxay doonaysay inay ninkeeda ula dhaqanto sidii xaas dhab ah laakiin ninku guurkaas wuxuu u arkay heshiis ganacsi oo keliya wejigiisa wax farxad ah lagama arki jirin toddobaad kasta way kulmi jireen hooyada Sujina si farxad leh ayay uga sheekayn jirtay waxyaabaha ay mustaqbalka wada samayn doonaan Master Seojon isagu keliya madaxa ayuu ruxi jiray isagoo ogolaanaya laakiin ma muujin jirin wax dareen ah markii semesterka cusub bilaabmay carruurtii hadda waxay noqdeen arday jaamacadeed maalin ka mid ah maalmaha jaamacadda Suji waxay aragtay tahe iyo Kyungju isla markiiba waxay wacday Sehyun waxayna ku tiri inuu si degdeg ah u yimaado isagoo u muuqda nin qurux badan oo soo jiidasho leh Suji waxay si gaar ah ugu casuuntay Kyungju bandhig fashion ah oo habeenkaas dhacayay kadib waxay u jeesatay tahe iyadoo ku leh waxaan haystaa hal tigidh oo keliya oo haray tahe iyadoo xishoonaysa ayay ku jawaabtay inay dhib lahayn isla waqtigaas Sehyun ayaa goobta yimid markii uu gaariga ka degay wuxuu si dabiici ah uga qaaday Suji qalabkeedii eloga wuxuuna geliyey kursiga dambe ee gaariga laakiin tahe si kulul ayuu ula dhaqmay tahe waxay dareentay in la iska fogeeyey sidaas darteed keligeed ayay iska tagtay intii ay gaariga saarnaayeen Kyungju waxay uga mahadcelisay Sehyun sidii uu uga caawiyey tahe guuritaankeedii markaas ayay Suji ogaatay in Sehyun uu diiday casuumadeedii hore sababtoo ah gabar kale arrintaasi aad bay uga xumaatay fiidkii Suji waxay mar kale Kyungju ku casuumtay safar ay qorshaynaysay Kyungju oo doonaysay inay Seju u dhawaato si farxad leh ayay u aqbashay waxay sidoo kale sheegtay inay taheeso kaxayn doonto dhanka kale tahe waxay aragtay sawir ay wada galeen Suji iyo Sehyun markay aragtay ninkii ay jeclayd oo si dhow ula jooga gabar kale qalbigeeda murugo iyo masayr ayaa buuxiyey kadib markii uu Suji geeyey bandhiga fashiyonka Sehyun wuxuu dareemay dembiga uu uga tegay tahe sidaas darteed wuxuu ku casuumay casho markii ay wada fadhiisteen tahe waxay ogaatay in Sehyun dhab ahaantii yahay mulkiilaha guriga ay degan tahay waxay isla markiiba soo saartay heshiiskii kirada waxayna ka codsatay inuu saxiixo waxay sidoo kale u sheegtay inay la xiriirtay New Jin Group oo ay dhawaan dib ugu laaban doonto hoyga ardayda Sehyun wuxuu ka codsaday inay arrintaas ka hadlaan kadib cashada intii ay cuntada cunayeen tahe way xanaaqday markii Sehyun uu maraq ku shubay hilibkii macaanaa ee la shiilay waxay dareentay inuusan haba yaraatee ka fikirin waxa ay iyadu jeceshahay iyadoo xanaaqsan way joojisay cuntadii waxayna go'aansatay inay qaadato qalabkii uu Sehyun hore uga amaahday kadibna guriga ku noqoto laakiin nasiib darro Sehyun wuxuu qalabkaas iyo alaabtiisa gaarka ah ku hayay hal meel markii tahe furtay qaanada waxay aragtay dhowr shay oo gaar ah labadooduba aad bay uga xishoodeen xaaladaas lama filaanka ah dhanka kale kadib bandhigii fashiyonka Seju wuxuu Kyungju geeyey gurigeeda Kyungju waxay uga warantay qorshaha safarka ee Suji kadib si diiran ayay ugu casuumtay Seju inay filim wada daawadaan laakiin Seju ma doonayn inuu si aad ah ugu dhawaado Kyungju sidaas darteed wuxuu raadiyey hab uu uga baxsado qorshahaas wuxuuna ka codsaday gabadhii guriga ka shaqaynaysay inay caawiso gabadhii shaqaalaha ahayd waxay si ula kac ah u qaribtay cuntadii uu Kyungju ugu jeclaa si ay calool xanuun ugu dhacdo oo aysan safarka uga qaybgelin laakiin si lama filaan ah Kyungju si ay muuqaal wanaagsan ugu yeelato Seju hortiisa way diiday inay cunto wax dheeraad ah natiijadii cuntadii kharibnayd waxaa cunay hooyadeed markii dambe Suji waxay Sehyun uga warantay qorshaha safarka Sehyun wuxuu sheegay inuu doonayo oo keliya inuu safarka la aado Suji iyo Seju markaas Suji ayaa si toos ah u weydiisay ma waxaad bilowday inaad tahe jeclaato dareenka haweenaydu aad ayuu u xoog badnaa Suji waxay dareentay in Sehyun dhab ahaantii qalbigiisu u dhacay tahe fikirkaas ayaa ka dhigay mid aan ammaan dareemin dhanka kale Seju wuxuu doonayay in tahe safarka ku soo biirto wuxuu u muuqday mid ku faraxsan in Sehyun ugu dambayn dareen dhab ah u qaaday qof markii usbuuca dhammaadkiisii yimid hooyada Suji si qurux badan ayay isu diyaarisay isna u qurxisay iyadoo filaysay inay la kulanto aabaha Sehyun laakiin Master Sehyok halkii uu iyada la kulmi lahaa wuxuu aaday inuu la kulmo jacaylkiisii hore hooyada Suji waxay guriga ku sugaysay subax dhan iyadoo rajaynaysa nasiib darro xitaa telefoon kama soo wicin dhanka kale hooyada Kyungju waxay xanuunsatay kadib markii ay cuntadii xumayd cuntay sidaas darteed Kyungju waxay ku qasbanaatay inay guriga joogto si ay u daryeesho waxay wacday tahe waxayna ku tiri inay iyadu marka hore safarka aado tahe waxay ku jawaabtay haddii saaxiibtay aysan baxayn aniguna ma baxaayo laakiin Kyungju waxay ku qancisay iyadoo sheegtay inay habeenkaas filim la daawanayso Seju sidaas darteed ay dib uga soo daahi doonto tahe ma aysan awoodin inay diido codsiga saaxiibteed sidaas darteed inkastoo cagteedu dhaawac ka soo gaadhay shaqadii subaxdaas haddana waxay keligeed u baxday safarka Kyungju waxay markaas wacday Sehyun waxayna ka codsatay inuu tahe ka soo qaado saldhigga Sehyun si toos ah ayuu gaarigiisa ugu aaday saldhigga markii uu tahe la kulmay wuxuu si daacad ah uga raali geliyey inuu ka qariyey xaqiiqda ah inuu yahay mulkiilaha guriga ay degan tahay labadoodii ugu dambayn way heshiiyeen waxayna xaliyeen dhammaan khilaafaadkii u dhexeeyey waxay noqdeen dadkii ugu horreeyey ee gaara gurigii dalxiiska ee loo qorsheeyey safarka markay arkeen qolalka oo qasan waxay bilaabeen inay wada nadiifiyaan Sehyun xitaa
xitaa wuxuu Taehe u kariyey cunto si lama filaan ah. Isla waqtigaas ayay Suji iyo Seju yimaadeen. Markay arkeen Sehyun iyo Taehe oo si dhow isula dhaqmaya, Suji wax yar ayay masayftay. Waxay marmarsiinyo ka dhigatay arrin kale si ay Taehe uga kaxayso Sehyun intii cashada ugu jiray. Suji waxay si joogto ah uga sheekaynaysay xiriirka adag ee ka dhexeeya iyada Sehyun iyo Seju. Waxay ku celcelisay in saaxiibtinimadoodu tahay sida gidaar bir ah oo aan cidina jebin karin. Kadib waxay si ula kac ah u sheegtay in Sehyun mar hore Seju kula tartami jiray soo jiidashada gabdho qurux badan, iyagoo ku heshiin jiray in qofkii gabadha ugu horreeya kasbada uu guulaysto. Markay Taehe maqashay hadalladaas, wejigeedu si tartiib ah ayuu isu bedelay. Jawigu wuxuu noqday mid culus. Si ay xaaladda u dejiso, Taehe waxay mawduuca u rogtay dhanka kale. Waxay sheegtay in Sehyun aad u jecel yahay sawirida, islamarkaana dadka waayeelka ah ee xarunta daryeelka ay aad u jeclaayeen sawiradiisa. Suji ayaa qososhay iyadoo leh Sehyun sawirida uu neceb yahay. Sehyun naftiisuna wuu xaqiijiyey hadalkaas. Markii uu sidaas yiri, jawigii miiska cashada wuxuu noqday mid kulul oo aan raaxo lahayn. Taehe waxay dareentay niyad jab weyn. Waxay samaysatay marmarsiinyo kadibna si degdeg ah uga baxday cashada kadib. Seju wuxuu Suji weydiiyey sababta ay sidaas u samaysay, iyadoo qof walba uu ogaa in qorshahoodu ahaa inay Sehyun iyo Taehe isku soo dhaweeyaan. Laakiin xitaa Suji kudheedu ma hubin. Waxay isweydiinaysay in Sehyun dhab ahaantii doonayo inuu sii wado ciyaartan mise uu iska dhigayo oo keliya si uu iyaga uga qanciyo. Taehe waxay aaday barkada dabaasha ee villada si kadis ah ayay halkaas ugu kulmeen Sehyun wuxuu uga cudur daartay wixii cashada ka dhacay. Wuxuu sheegay inuusan xitaa hubin inuu sawirida jecel yahay iyo in kale. Taehe ayaa markaas weydiisay, maxaad mar walba iskaga dhigtaa qof xun? Waxay u sheegtay in mar kasta oo uu la joogo Suji iyo Seju uu u muuqdo nin ciyaal suuq ah oo aan wax mas'uuliyad ah lahayn, laakiin dhab ahaantii uu leeyahay hibooyin badan oo wanaagsan, islamarkaana awood u leeyahay inuu dadka farxad iyo diiran siiyo. Bisaylka iyo naxariista Taehe ayaa si tartiib ah u bedelayay Sehyun.